soo dhawaada dhammaan asxaabta channelka Wadajir Technology ee maanta waxaan ku hadli doonaa laba website oo lagu saadaalin karo ciyaaro correct score ah. Correct score haddii aad fahansaneen waa correct score waa meelaha ugu lacagta badan oo lagu ciyaaro 1xp lacag lagu sameyn karo waaye. Marka dad yar ayaa saadaalin kara, dhammaan dadkan ma saadaalin karaan. Marka waxaan ku hayaa meel aad ku kala ogaan doonto ciyaaraha waxa ku kala badin doonaan ayaa maanta ku haya. Marka si aad u ato ciyaaraha waxa ku kala badin doonaan labadan website ayaan ku hayaa. waxaan ku dhigayaa qaybta hoose description-ka mobile-ka ayaan ku dhigayaa, meeshaas ayaa kuga xiriiri kartaa. Marka website-ka sida aad ugu jeedaan waa website koowaad ayaan galaynaa oo taxliilinta aan ku qaadan doono. Website-kan waa sida aad ugu jeedaan, waana website ugu badan oo lagu taxliil qaato marka aad diyaarinayso correct score. Marka dad correct score fahansaneen waa correct score waxa loo jeedaa ayaa ah oo laba naadi marka isku dhacayaan oo ciyaarahooda bilaabanayaan ayaa waxa la dhihi karaa middan labo ibir ay ku kala badinayaan 3 iyo 1 hal iyo hal ay ku kala badinayaan ay dhixisa. Waa meelaha ugu lacag badan oo lacag lagu sameyn karo waaye, waan dad badan ayaa lacag ku sameeyay. marka sida aad u jeedaan waxa ciyaaraya maanta meeshan aad ugu jeedaan Manchester iyo Chelsea ayaa ciyaarayaan. waxa ku leeyahay ayaa Manchester labo ay dhalinaysa, Chelsea waa ibir. marka oo ah Chelsea Manchester waa win, badis haddii aad saarto waa win, Chelsea waa lost. marka muhiimada maahan in mar walba uu saho, laakiin waxaad ku heli kartaa fikro oo adeegna marka maskaxdaada u adeegsan doonto. marka meeshan waad u jeedaan Norway iyo waxa ciyaarayaan Everton. waxa ku leeyahay Norway ibir baa dhalinaysa, Everton waa hal ay dhalinaysa. Norway ibir ah, Everton hal gool ah ayuu ku leeyahay meesha. marka meeshan waad u jeedaan Leicester City iyo naadigan waxa dhalinayaan ibir iyo hal, meeshan waad u jeedaan 2 iyo 1. marka waxaad ka kala ogaan kartaa ciyaaraha oo correct score-kooda iyo wintooda. marka waad u jeedaan Aston Villa iyo Manchester United waxa ku leeyahay Aston Villa ibir waa hal gool ma dhalinaysid, Manchester United ay hal gool ay dhalinaysa ay ku leeyahay. marka meeshan waxa ku kala ogaan kartaa correct score-kooda. marka win hadda sida aad ugu jeedaan Manchester waxa sheegay in iyadu win tahay, laakiin Aston Villa lost ay tahay maadaama ay ibir ku dhamaan doonto ciyaari doonto. marka website-kan waa website mar walba aan fikrad ku soo qaato waaye, waana website aad u wanaagsan. marka meeshan marka aad soo fiiristo qaabka waxa u dhici doonaan marka aad ogaato, adeegna maskaxdaada ayaa u adeegsanaysaa. haddii doonto waxa waa ku bedeli kartaa, haddii doonto si waa raayi kartaa, fikradaada qabtaa. muhiimada aan u soo gelinayno waa in aad wax ku fahantaan waxyaabahan correct score-ka ah. marka website-kan haddii aan ku baxno waxaan tagaynaa website-ka kale, waa midkan website-ka kale ayaan ku dhufanaynaa. markaas xishmada waxaan kaaga codsanaynaa in subscribe noo saarto, haddii aad hore noola joogtay like dhahdo, si share garayso asxaabtaada gaarsiiso. marka website-kan ayaa isaguna ku hadlaynaa, waa website-ka ugu wanaagsan ay ku jira sida aad ugu jeedaan. sida hadeertan aad u jeedaan website-kan isaguna waxaad u shaqeeyaa waa arki kartaan. marka waxa ku leeyahay website-kan hadeertan uu sheegayo meeshan aad u jeedaan qoraalkan Niger iyo Sudan 2 iyo ibir ayaa ku badanaya ku leeyahay. halkan waaye Niger iyo Sudan 2 iyo ibir. marka meeshan waxa ku qoran waa arki kartaan halkan Manchester iyo Chelsea waxa ku leeyahay 2 iyo 3. waa website-kan waa website-ka labaad isaguna taxliilintiisaan ayaa u dhacday. waxa ku leeyahay Manchester iyo Chelsea 3 oo Manchester dhalin doonto iyo 2 oo Chelsea dhalin doonto ayuu ku leeyahay. marka haddii aan imaano Norway iyo Everton ibir iyo ibir ayuu ku leeyahay. waad u jeedaan dhamaantood sida ay ugu jeedaan isaguna taxliilintiisa waa sidaan. in fahanteen baa u malaynayaa, taxliilin ayaa ku soo qaadanaysa. marka tusaale kaliya waaye, marka maxaan muhiimada in isagu wax ku soo qaadato, laakiin dhamaantood waa in aad wax ku fahantaa. waa marka fikrado badan ayaa adeegsanaysa taxliilinta marka aan sameynayno ayaan waxaan adeegsanaa. marka dhamaantana aad u jeedaan waa correct score-koodii waaye, waa meelahan sida aad ugu jeedaan waa correct score-koodii san ayuu ku leeyahay. marka website-kan waan ku soo baxaynaa.
marka haddii aad website-kaas oo taxliilinta ku soo qaadato maskaxdaada u adeegto sidii wax u dhici karaan maskaxdaada ay ku darsanaysaa marka saas ayaa wax u saadaalin kartaa oo adigoo isku ilaalinayo lost marka saas ayaa wax loo saadaaliyaa marka haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar haddii aad horey noola joogtay like saar si share garee asxaabtaada gaarsi si ayagana wax ugu faa'iidaan barnaamijyada aan halkan ku soo gudbino isku soo laab wanaagsan asxaabta channelka Wadajir Technology.